waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wada shanaad oo toddobaadka ciidamadana kala daawataan anigu waa Aweys Xasan Maxamed barnaamijka awooda shanaad toddobaadkan waxaa marti ku ah siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah gudoomiyaha xisbiga Wadajir wuxuu soo qabtay xilal kala duwan dowladii laga soo bilaabo dowladii ku meel gaarka ahayd waxaana suurta gashay in Muqdisho ay ku wareysano Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan kala hadalno arrimo muhiim ah marka loo eego geedi socodka siyaasadda Soomaaliya mudane gudoomiye farxad bay tahay inaad ila joogto barnaamijka wada shanaad ee dalka soo dhow hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida ما سنتها ودوهي dawdeel barnaamijka wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qaybta koowaad waraysigeenan waxaan si kooban ugu soo gudbin doonaa su'aalo weydiimahooda yihiin waa jirtaa ama ma jirto oo idinkaga imaan doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan sidoo kale u gudbi doonaa qayb labaad oo su'aalahaasi oo faahfaahsan ayaan idinla wadaagi doonaa gudoomiye qaybta koowaad ee barnaamijkeenan su'aalahaasi aynu ku eegaynaa jawaabta kaliya ee aad la wadaagayso waxa weeyaan waa jirtaa iyo ma jirto faahfaahinta qaybta labaad ayaan ku geli doonaa su'aasha koowaad waxay tahay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa aqoonyahan ka faa'iideysta aqoontiisa iyo wax uu akhriyo marka siyaasadda uu ka hadlayo ma jirtaa mise ma jirto way jirtaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasaddiisu waxay ku dhisan tahay mabda'a ana dawla wa dawlatu ana oo ah aniga ayaa dawladda ah dawladana waa aniga ma jirtaa ما جرت عم داك سهور جيدة Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa ku weyn reernimada marka lala akhriyo sawirkii xafiiska ra'iisul wasaaraha aad kula soo gashay ra'iisul wasaaraha dhawaan waa magacaabay ma jirtaa mise ma jirto ما جرت Cabdiraxmaan Cabdishakuur wararkii lagu qaaday hoogiisa qaar ka mid ah askartii ilaaladu ahayd lagu dilay wuxuu u adeegsadaa ajanda siyaasadeed ma jirtaa ما جرت wadane kiiska siyaasadda Soomaaliya waa kiiska badda ee Soomaaliya oo aad marar badan ka hadashay waxa uu kugu noqday bar madow oo siyaasaddaada ku taala ma jirtaa mise ma jirto ما جرت siyaasaddaada waxay ku dhisan tahay shakhsiyad ee mabaadi kuma dhisno ma jirtaa mise ma jirto ما جرت aad u mahadsan tahay qaybta labaad ee barnaamijkeennan ayaan u gudbi doonaa haddii aba yidhaahdo mar kale waxaan kugu soo dhaweynayaa dalsan TV ee barnaamijka awoodda shanaad Febraayo sanadkii 2017 waxaad jeedisay khudbadii murashaxnimada hadalladaada waxaa ka mid ahaa inaad tiri Soomaaliya madax bannaanideedii shaki baa ku jira go'aanada ayad iskama lahan waa loo gaaraa ciidamadeeda mushaar ma siisan karto oo nabad sugidda ay ku jiraan maxaa iska bedelay waqtigaasi iyo marxaladda siyaasadda Soomaaliya hadda ma laga gudbay wixii maalintaasi khudbadooda aad ku sheegtay mise way jiraan halbeeg waxa uu ah cabirkaas aan jeediyey saas inaan hadda u iri xarfaha aad sheegtay ma hubo khudbadaadii ku jirtaa laakiin in ay Soomaaliya weli madax banaanayn oo madax banaanadeedii ay nuqsaan tahay waxa qiyaas u ah ama halbeeg u ah maalintii laga wareejiyay askariga Ugandayska ee filla Soomaaliya joogo furaha xafiiska madaxweynaha inta oo askari ajnabi hayo furaha xafiiska madaxweynaha ama amniga filla Soomaaliya ama amniga garoonka diyaaradaha ama amniga dekedda Muqdisho ama amniga xarunta baarlamaanka madax banaanida Soomaaliya su'aal weyn ayaa ku jirta saas daraadeed waa halbeeg annaga noogu ah oo noogu cabir ah oo noogu qiyaas ah dadkaas ajnabiga ah ee u yimid Soomaaliya inay dhibaato iyo mashaakil dhexdeeda yaala ay xaliyaan maalintan iska fasaxno siyaadada Soomaaliyana gacanta ay u gasho askari Soomaaliyeed maalintaas ay bilaabanaysaa dib u hanashada madax banaanida Soomaaliya maxaad aaminsan tahay
in lagu gaari karo yoolkaasi aad sheegtay wadiiqada loo marayo maxay tahay way ayadana aadaan u sharaxnay wadiiqada loo mari karo waxaa waye kow in laga fogaado wixii taas keenay inaan halkaas ku dhammaano ciidanka ugu xooga badan Afrika aan lahayn dowlad laga heebeysto oo Soomaaliya adduunka ama geeska Afrika hadal ku leh ama qowl ku lahan ahayn waxa keena waxaa waaye dowladnimadii in lagu ciyaaray oo ciidankaas awoodda badan ee ilaalinaya madaxbannaanida Soomaalida iyo hadduu jiro dastuurka Soomaaliya ama constitutional order in ilaaliyaan loogu talagalay waxaa loo adeegsaday dana siyaasadeed oo shakhsi ah salaata Soomaaliya 60kii inka xorriyadda qaadatay ilaa 69kii waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga askartu banaankii dibadjo ay ka ahaayeen siyaasadda waxay ku filnaayeen inay ilaaliyaan xuduudaha dalka iyo dastuurka dalka u yaala inay dhowraan taasoo ah madaxbannaanidii qaranka Soomaaliyeed u taagneed laakiin markii askarta talada dalka la wareegtay waxaa yimid in ciidankii loo isticmaalay dana siyaasadeed lagu caburiyo siyaasadii la soo dhexgeliyay siyaasadii militarigiina ay la wareegeen taladii dalka gudoomiye degmo laga bilaabo ilaa madaxweynaha oo ciidankii noqday la kala garaway ciidankii iyo siyaasadii ciidankiina oo noqday wax loo isticmaalo dana siyaasadeed mar kasta oo marka ciidanka loo isticmaalo dana siyaasadeed oo ay dadka markaas talada ay u isticmaalaan lana waayo awood kale oo siyaasadeed ama sharci ama garsoor ama baarlamaan oo madax bannaan oo check and balance ama dheelitirta laanta fulinta la waayo markaas waa marka gablanka dowladda Soomaaliya dowladnimadeeda oo bilowday anina waxa aaminsanahay 69kii uu la bilowday ilaa haddeertaan waan xalinaynaa mushkiladaas markasta ay timaado dowladihii ku meelgaarka la dhisay iyo kuwii ku meelgaar ka dambeeyana mushkiladaas waa mid ugu weyn oo xal aan u laanahay oo ah dadka talada haya ee laanta fulinta ah inay u hoggaansamaan ciidanka iyo siyaasadda inay kala saaraan hay-adaha kale ee laanta sharci dejinta ama garsoorkana si madax bannaan ay ku shaqeeyaan dastuurka ku meelgaarka ee la dhigtayna waxa la adeecayo oo laga dambeeyo ama la ixtiraamayo ama loo hoggaansan yahay isaga noqdo xilliga uu dalka madaxweynaha ka ahaa oo madaxtooyada joogay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka mid ahaa suxufiyiin kula fariistay maalin uga xog u warantay xaaladda siyaasadda dalka uu marayo baliiska iyo teemka si sax ah uma sheegayo waxaan ka dhigayaa amaana cilmiya waxaad aad u dhaliilaysay siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo siyaasaddii dhaqaalaha wax badan oo dhaliila ayaad jeedinaysay Cabdiraxmaan Cabdishakuurkii maalintaasi aan bartay waqtigan hadda 4 sano ah ee madaxtooyada uu joogo madaxweyne Farmaajo dhaliilihii weli wuu wadaa maxay ku dhisan tahay naqdigaaga muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay dowladnimada Soomaaliya hanaankeeda geedi socod anaga waxaan ku jirnaa sidanaba geedi socod la yiraahdo geedi socodka dhismaha dowladda Soomaaliya dowladda ma dhisna dad badan oo madax waxay isku qaldaan markay talada dalka qabtaan waxay moodaan dowladda inay dhisan tahay laakiin waxaan ku jirnaa dhismaha dowladda website-da markii la sameysanayo waad aragtay media ka shaqeeya tahay markii la cusub yahay website-ka uu cusub yahay waxa lagu qoraa construction macni dhismo ku jira la yiraahdaa dowladda Soomaaliya dhismay ku jirtaa laakiin dibka haysta waxa dad badan oo madaxa markii talada loo doorto waxay u maleeyaan inay dowladda dhisan tahay laakiin ma dhisna markii socodka dhismaha dowladda iyo nabadda Soomaaliya isla socda qof kasta oo taladeeda yimaada dabcan dhaliil uu leeyahay dhaliishii markaas aan jeedinayay iyo dhaliisha aan maanta jeedinayo waxaa laga yaabaa inay iskuna mid yihiin ama ay kala duwan yihiin dhici karta laakiin waxay u kala duwanaayeen maanta iyo shalay waxay tahay madaxweynihii hore ee dhaliisha ogolaa in si public loogu jeediyo ama si loogu jeediyo maaragtay private oo saaxiibtinimo sanad iyo ziyaado ku dhawaadaan la taliyo ah aniga taladeeda markaas si waxaan u sheegi jiray private markaan ku qancay inaan sidii private ka ahay taladeeda ay samir dhal u noqonaynina waxaan go'aansaday inaan si public aan u sheego laakiin madaxweynaha hadda talada haya fursadaas maalin ma dhiibin ama talaf private loogu sheego ama talab public loogu sheego labada ma ogolaanin waa hadalkii aad ugu bilowday su'aalaha ay weydiinaysay ninka ay ku sifeedo oo ah aniga dawladdiya asaga ayaa noqday saas daraadeed dhaliilihii weli waan qabaa dhaliilaha intooda badan waxay ku saleysiin aragtida iyo fikirka ayaan darada jirtaana waxay tahay dadka Soomaaliyeed ama dadka elite siyaasadda ama nuqabta siyaasadda la yiraahdo weli waxaana la kala saarin dowladnimada inay aragti u baahan tahay dadku waxay u haystaan dowladnimada activity u baahan tahay ama nashaad u baahan tahay
in wax la qabto in iskaa wax qabsan la sameeyo jidadka la xaaqo maaragtay wasaaradaha la kormeero tuuto inta la xirto askarta xeryaha lagu booqdo waxaas waxaa la yidhahdaa waa activity waa nashaad waaye dowladnimada nashaad ma dowladnimada waa falsafad iyo aragti inaad qabto waaye oo xaaladda aad ku jirto ay kuu qeexan tahay aad og tahay halbeegyada aad ku cabirayso geed socodkaaga tallaabadaadana ay ku cad yihiin marka aniga waxaan leeyahay mushkiladda ugu weyn ee qof kasta hogaamiye Soomaaliyeed xilka soo mar haysta waxa waaye inuu isku qaldaayo inay weli dowlad dhismo lagu jiro iyo inay dowladdii dhisan tahay laakiin gudoomiye ma laga yaabaa in tarbuunka aad saaran tahay weliba waxaa la arkay siyaasiyiin fara badan oo marka tarbuunka ay joogaan bannaanka joogaan wax qurux badan oo u muuqanayaan marka gudaha la galan ay ka duwan tahay waxa ku muuqanaya arma yihiin waxaan ku dhisnayn xaqaa'iqda gudaha ka jira dowladnimada Soomaaliyeed ay muuqataaba xaqaa'iq uma baahna dadka siyaasadda ka shaqeeyana ama siyaasadda u loolamayana haddii dadka media oo idinkoo kaleeto ama dadka kale sida kale u leh intellectual exercise waxa la yiraahdo oo ama aragtida kasoo saari kara dadka siyaasadda u ordaya haddii lagu qiyaasi lahaa qofka aragtida uu hayo aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha talada dalka ayo maanta cid aragtidiisa weydiisa ma jiro baarlamaanka aad khudbada aan sheegay aan ka akhriyo sheegayso asna uu ka akhriyay wuxuu sheegay activity ahaayeen haddii askar qofkii qarax soo sheego waa intaasaa la siinayaa aniga wadooyinka ma xiri doono safarada waan iska jeeji doonaa anigu activitidaas maana sheegin sababtoo activitydu mushkilada Soomaaliya haysata maaha mushkilada Soomaaliya haysata Soomaaliya oo kale ah marka la joogo qofka Soomaaliga ah ee taagan wadada waxa ugu horeeya ee dhibaato ku haya waa wada xiran intaasoo dhan waa natiijo waaye laakiin haddaadan asalka mushkilada daawiya haddaad dhakhtar tahay adiga haddeertaan oo qofka dhakhtarka asoo qof qandho kadkadinaysa ku yimaado dabcan qandhadaa ka jebinaysa laakiin haddaad u sheegto inuu xalka qandhada yahay oo beri marka kuu soo noqdana kaniiniga qandho jebiska aad ku celiso oo aadan baarin dhiiggiisa ama saxaradiisa ama kaadidiisa oo aadan ogaanin cudurka haya dee qofkaas maalin kasta waxaa noqonaysaa inaad kaniini siiso qandhadana 4 saac oo kaniini ku filan yahay ka jabto maalin kastana uu kugu soo noqdo dadka siyaasadda Soomaaliya u loolamaya intooda badan dhammaantood ma dhahayo waxay ka shaqeeyaan waxa waaye qandho jabin waxay aragtida ay la imaadeen waa aragti qandho jabin ku dhisan waaye markay qandhada saacado jabiyaan way daalayaan bade qof hadduu kugu soo noqdo qandhada ka jabis dhibaato male laakiin waxa meesha yaala waxay tahay in la isla fiiri u baahan dulucda asalka mushkilada muxuu yahay waxna waa symptom waa waxa ka dhashay jirada waxna waa jirada asalkeeda waxa waa Soomaalida isdiidan maxay isku diidan yihiin siyaasadda xukunka ciidan amniga dhaqaalaha inta isku wada haystaan kuwaas u baahan marka in xal loo helo oo sal loo dhigo oo ay ku timaado negotiation iyo wada hadal annagana markaan leenahay wadajir haddaanahay slogankeena ama halku dhigeena waxaa waaye is ogol iyo isla guddoon talo la isla ogol yahay guddoonkeeda in la wada leeyahay tusaale hadeerta annaga maalinta ugu horeysay 2017 aan bilownay maanta filla Soomaaliya maxaa lagu fadhiyaa isla guddoon isla ogaa lagu fadhiyaa haddaa bilowgii la bilaabi lahaa joorniga safarkaas hadduu madaxweynaha bilowgii bilaabi lahaa 4 sano maanta nagama khasaarteen meeshaan ka fiicanaan joogi lahayn sababtoo ah siyaadada iyo sovereignty Soomaalida qaybsan awooddaa qaybsan ciidankaa qaybsan dhaqaalaha qaybsan qof kaligiis tala goy karaa maba jiraba hadduu qofka marka faham ka yeesho alfahm maxaa la yidhi nisful fahmi su-aal Soomaaliya ardayda markaan ahayn waa nisful jawaab marka haddii marka qofka uu mushkilada fahmo xalkeeda already half ka mid u haya laakiin hadduu la fahamsanayn waa mid aan ku leeyahay haddaa mushkilada Soomaaliya jid la xiri iyo diyaarada la raaca u haysato waaga kuu baraya hadhowdii markaad aad meesha tagto waa isleeyahay anigu xal ma haya sixir ah ama ushii nabi muuse oo kale anigu ma hayo laakiin hala doodo afkaaraha la soo bandhigo qof walba xalka oo dalku hayna laga dhageysto madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa tilmaamtay nin ogol in la naqdiyo dadka dhageysta ugu dambeyntii ay kugu qasabtay in publica ka hadasho oo aad ugu gudbiso madaxweyne Farmaajo goormee kugu dambeysay oo aad si shakhsi ah ula kulantay adoo tala qaran wada intuusan markii la doortay 2 jeer sanadkay ahayd markii la doortaan ku dhahayba bishii doortay 2 jeer Febraayo 2 jeer arag kabacdi maan arag أنا مرة طبعا أسجن وما مرتقى إن أنت لسي. فبراير كوجد دمبيس هذا فريسته. ما سكويري ما صار أوتك. أساير. ما حد كذا. تلو ويدي ما حي إلا توضح هي أنا جي حزبي يرجع كتير سنة مركز تلو أقول هم سنة سياحة مدح بين هذا جزيرة دجنا ولا ما جورين بقى هتل ما جورين محتوية. عمره مدح بين تلو أقول ضد كسر مالي هذه وده بالدجة هذه كسر دويين وحق أبورتي دورشة هذه وحق أبورتي رجو كوين تبرت هذا أديك أما الدولة سوى ما تبرت هذا وأورن كورة لنا وحيتها إنها خاص دكتو في الأشياء ضدك أي قبان وحول ديسان أقول دقا ضدك الله هذا
waxaad u sheegtaa uga mahad celi soo dhoweynta waxaana u sheegtaa waxa ay ka filayaan filashada ay qabaan oo ah inaad xalinaysa mushkilaha dalka yaallo iyo limitationka ama capacityga ama awoodda dowladnimada soomaaliya taallaba inaysa isku dhigmin marka waxaad u sharaxdaa in taxadiyaadka iyo caqabadaha dalka yaallo xoogooda intay la eg yihiin iyo tabarta dowladda intay la eg tahay u sharax inaad dadaalayso intii aad qabo kartana aad qabanayso u sheeg dadka si ay u dhimaan rajada iyo filashada ay qabaan taas ma yeeline diyaaradihii waxaa lasii kiciyey rajada ma jirtaa in madaxweyne farmaajo maalmihii magacaabista ra-iisul wasaaraha la qorsheynayay lagu yirood la fadhiisatay haa waa jirtaa ra-iisul wasaare raadinaysa waa ka wada hadalnay waaw muxuu ku yidhi madaxweynaha ra-isul wasaaraha wuxuu yidhi wuu ila sheekaystay dabcan madaxweynaha muxuu ku yidhi waa la sheekaystaan ku dhawa soo wadaa madaxweynaha waan sheekaysanay dad kolleyto dad asaga ka agdhowa oo islahaa inaan xilkaas qof qaadi kara malaha aan ahay qiyaasayay horta ani midaan kuu conform garayna oo runa ani madaxweynaha kama dalban inaan arko laakiin dad asaga ka agdhowaa unbaa dadka agdhowaa inuu dalbaday ani asaga ma conform garay karo laakiin dadka agdhowaa waxay isku dayeen inay dhahaan ninkan xilkan waa u qalmaa oo qaadi karaa de loobiga waxa la yidhaha waa garanaysaa ay nagu waceen waxaan ka dhamayn 30 daqiiqa 40 daqiiqa ayaan sheekaysanay aan badnayn horena waa isku naqaanay de madaxweyne anaga iskumaan cusbayn marka madaxweynaha wuxuu ii sheegay in ra-iisul wasaaraha wax calafa ay tahay wax hadda ku saabsan ra-iisul wasaare cid noqonaysa cid aan noqonayn iyo inaan aniga waxaan qabanayni kamaana sheekaysanay si caadi oo generaala aan isaga sheekaysanay waxyaalaha ii sheegay waxaa kamid ah calafka uu tusaalaha igu soo qaatay asaga naftiisa inuu filaynin inuu madaxweyne noqonayo oo ku xisaabtamaya 30 cod keliya wax lamid ah inuu heli doono waxa dhanna wuxuu ku saleeyay wax la yiraahdo calaf ciddii wax helaysa ilaaha og laakiin wuxuu yidhi nin waxaa tahay qudrad leh capacityna leh hogaanka dalkaana noqon kara prime ministerna u qalma laakiin de taas wuxuu yidhi waa wax calafa oo ilaahay xaggiisa ku xiran wuxuu yidhi dadkii hore oo la shaqaynaysa dabcan markaas aladiisha wuxuu u qarinayaa madaxweyne xasan sheekh aaminaya maqaamkaadii iyo waxaad mudneed kuma aysan siinin annaga laakiin dowladnimadan kugu baahana ra-isul wasaare hal la hela ama yaan la helin taladaada iyo tixgelintaada iyo nidaalkaaga iyo aan qadarinaynaa sidii aan ku wada hadalnay runtii oo hal shay oon si daafuran aan kugu sheegayo waa sidaas maalintaasaan igu dambeysay laakiin diyaar baad u ahayd inaad aqbasho in lagu magacaabo ra-iisul wasaaraha koos madaxweynaha waa soo wada shaqeynaan ku dhahay kambeynkan ka wada shaqeynay waad garanaysaa kambeynada markii la gelaayo dadka oo mucaaradka oo coalition ay sameeyaan si xukunka markaas looga tuuro madaxweynaha fadhiya waa heshiis loo ahaa madaxweynaha fadhiya dad coalition oo wada shaqeynaya oo taas waxaa ka horeysay intii asaga la tartantay intaan ka ahayn madaxweynuhu ka guuleystay intii kale oo casho u qaaday intuu deganaa hotel jazeera wuxuu ballan qaaday in ay dowladda kala shaqeeyaan kana qayb gelinayo kaalmaha dowladda laga qaadanaya asaga dee markaas mana sheegin laakiin wuxuu yidhi ama la talin ama xil ama mas-uuliyad rag ka wada shaqeeyaa tihiin sida aan ku ballanay qof hadduu guuleystay inta kale inuu talada dalka wax ka siiyo oo hogaanka dalka ama talada qayb uga dhigo iyo ballan qaaday kulli musharaxiintana way fadhiyeen waxa la weydii karo waaye ayaga naftooda musharaxiintana maalintaas ugu dambeysay madaxweynaha dhanka kale aan u rognay ee jaanis ma siiseen madaxweynaha adaatiin siyaasiyiinta 4 sano u haystay 6 bilood ugu horeysa xafiiska iyo kala wareegii sanadka koowaad in nidaamkii dowladnimada sii adkeeyo ma la siiyey jaaniskaasi mise aragtida ah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo 4 sano jaanis looma siinin dadka ugu horeeyada mucaaradka adaa ku jira wikipedia uu qoraayo marka akhriyay taytalkaaga inuu yiraahdo mid ka mid ah mucaaradka ugu awooda badan dowladda ka soo horjeeda maxaad fursad u siiyay nidaamka dawliga aways wuxuu yahaba fursadaha la ismasiyo marka adiga banooniga laba tiim la ciyaaraysid tiimka aad la ciyaaraysid haddaad dhahdo waxaan siinayaa fursad say goolash iga dhaliyaan ma yeelaysid fiiri mucaaradka waxaa loo dhisay dowladda inay saxaan sidoodaba mucaarad kalmad constitutionka soomaaliya ku define garaysan yahay opposition ama dadka mucaaradka waa inay dowladda saxaan oo ay dowladda check and balance ka mid yihiin hadda annaga fiiri xisbigeena iyo xisbiyada lamid ah mucaaradka waxay noqdeen inay kaalintii baarlamaanka ay qaataan ba xataa kaalintii uu lahaa baarlamaanka markii baarlamaankii la aamusiyey adiga maanta hadday gaariga ku soo qaaday xaruntan aan waraysi ku qaadayno darawalka wadaa haddii uu shee la dhaha dheereeyo oo isbiirkana xoog ku wado aad dareento inuu risku gelinayo dhihi maysid ninkan u sugba ilaa xaafadda ka tagayo oo fursad sii marka ugu horeysaad qabanaysaa dowladnimada waxay ku dhisan tahay nidaamka dimuqraadiga oo dastuurka haddii dee dastuurka layska laalo oo dimuqraadiga layska dhaafo arrin kale waay day one subaxa talada aad la wareegto dadka mucaaradka waxay kugu sameynayaan check and balance waxay kugu sameeyaan dheelitir qaladaadkaaga tilmaamayaan ma rabo dooda xisbiyada
oo marka tacriifkeeda ama qeexitaankeeda la eega ah koox dad ah siyaasiyiin ah isu tagay hadaf siyaasadeed leh uguna weyn inay kursiga madaxtinimada ku gaaraan laakiin marka hoos looga dago waxaa jira lawaaix iyo shuruudo iyo naftirkooda waajibaad ka saaran dalkaasi ay mucaaradka dowladdiisa ku yihiin kow inay talooyin bixiyaan laba xukuumadda ku kormeeraan waxyaabo ay qabanayaan saddex laga helo waxa la yidhaahdo dhaqdhaqaaq ijtimaaci ah ma qaadateen door xisbi mucaarad wadani ah of course waa taa sameeyna anaga hadda madaxweynaha intaan u tagno madaxweynuhu waa qaldantahay waa saxantahay ma dhihin saad ogtahay magaalada anaga doodaan ku qaban jirnay oo intaasoo meelo kala duwanaan ku qabanay waxaan qiimeynaynaa xaaladda amniga xaaladda siyaasadda xaaladda waa 6 bilood kadib weliba ma aha anaga madaxweynaha february la doortay anaga lamaan bilaabin anaga xisbiyaan nahay siyaasadaan ka shaqeynaa badar ma beegno ganacsina kama shaqeyno inaan soo bandhigno dadka aan la hadalno oo dhalinyarada ah iyo qeybaha kala duwan oo bulshada ah dowladda waxay nagu qoonstay intaas inaan la hadalnay dadkii oo aan niri qaladaadkana jiro dhaliilahana jiro sideedana mucaaradka iyo dadka xukunka haystaa waxay ku kala faa'iideynaa waxay tahay talo oo intay qoraan taladan aan qodnaa laysma dhehe hadalka ay ku hadlayaan iyo dhaliisha ay ku dhaliishayaan ayaa layska qaataa tusaale dantii maali dalka Kenya waxaa heshiiyey Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta dadka Kenyanka waxay dareemeen halisay dareemeen sababtoo waxay dhahay mucaaradkii dowladda saxaya haddii dowladdii ku milmaan dee annaga dadkii Kenyanka halisay ku jiraan sidoo mucaaradka Soomaalida waa inay fahantaa waa in la dhiirigeliyaa waa in la taageeraa waa in sida dowladda loola xisaabtamo laakiin waqti mucaarad lama joogaba aragtidaas dad aaminsan dal maalin walba qaraxyadii ammaanku xun yahay dagaal ka soo kabanaya war hal la gaarsiiyo xil xisbi mucaaradii dad aragtidaas qaba waa aragti oo doodeeda macquulta laakiin anaga jawaabteedan ku sheegayna qarankan dib loo soo kabaya qarankan dib u kabasho ku jira haddii qof jabo oo la kabayo oo u jeedo sida loo kabayo inay qaldan tahay ma waxaa sugaysaa in si qalad loo kabo hadhow inta la jibiyo haddana la kabo mise waxaa leedahay war hadda yaan qalad loo kabin su-aashaas saxaafadan kusoo celinaya aweys raggu hogaaminayo annaga waxaan aaminsanahay falsafadeena ku dhisan tahay qarankii qaranjabaa dhacay dibaa loo kabayaa soo maaha yaan si qalada loo kabin annaga waa sheegaynaa dad hadday optigareeyaan ama ay rabaan markii qalad loo kabo kabacdi aan hadli doonaa dadna waxaa waaye dib in loo jebiyo haddana dib loo kabo annaga marka waxaan diidannahay qaran jabka dhacay in dib loo kabo si qalada loogu kabo taa diidanahay taas waa xisbiga waana celinaynaa inta arkayna in qalad loo kabayo xisbiga wadajir aad gudoomiyaha ka tahay muqdishona xarun buu ku leeyahay nayrobina uu ku leeyahay soo sax ma hogaamiyaha gudoomiye nin kale ah waa hogaamiyaha xisbiga cafwan muqdisho iyo nairobi xafiisyo ku leeyahay waa sax soo ma muqdishona anaga xarun ku leenahay anaga iyo gobolada qaarkood oo weli aanan ahayn kuwa shaqeynaya dalka meel ka baxsan halkeed ku leedahay may waxaan ku leenahay jaaliidaha matalaadaan ku leenahay Soomaalida dad wakiilo naga ah joogo laakiin xafiisku ma lihi adigun baa lagu arkay xisbiga xaramka idaarigiisii maamulka maxal loo arki lahayaa mise waa sheekadii ahayd hal nin iyo hal xisbi horta xisbiyada macnaha laga qaado runtii waxaana aayaddaa saaraya aniga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka because 90 iyo dhowr xisbi ayay diiwaan geliyeen shuruudihii la rabay xisbi inuu marana ma aysan marsiinin waqtina uma sameynin hadda aniga Allah u naxariistay Xasan Abshir waxaan tagay tacsidiisii meesha la yiraahdo Puntland hadda inta la wada xisbiyadeeda Somaliland ayaga waa fair advance xisbiyadeeda laakiin Puntland hadda inta la wado waa sanad allo xisbiyada dhan lagu soo dhameeyay jiritaankooda because time waxaa loo sameeyay jadwal zamani ama time loo sameeyay xisbiyada la yiraahdo shuruudahaas in yaalo ma dheedheelna cidii buuxisaa shuruudahaas qualificationkeeda ama noqonaysa laakiin inta waxaa la yiri xisbiga waa jantaar rogan qofkii soo rajisgaray $500 bixiyo xogaa yar foomo buuxiyo shuruudo aan badnayn xisbi waay ilaa 90 dhowr la marayo time loo man wali marxaladii ku meelgaarka aad ku jirteen xisbi rasmi ma la gaarin waa in la gaarsiiyo waay fiir in laga shaqeeyo qaybna guddiga qaybna baarlamaanka waxay leeyahay sharciga xisbiyada in la wuxuu u baahan yahay la aman gareeyo oo wax laga bedelo lama bedelin wax la leeyahay iska open ended ma jiro oo leeyahay xisbi waa iska furnaana ilaa laga gaaro xilligii fayskii labaad waa in time la sameeyaa annaga waxaan ku xukumi karaa oo ku xadidi karaa in xisbiga waqti loo sameeyo zamani tii lama sameeynin marka waxaan u gudbaynaa su'aalaha kale 3 sano iyo bar adiga oo naqdiya dowladda ambaareeya ama si kale u yiraahdo eedeemaha dhaliila ayaa nagu ka war dambeysay waxaa meesha ka baxay ra-iisul wasaare xasan cali khayre toddobaadkii ugu horreeyey ra-iisul wasaare la magacaabay waxa uu kugu casumay ama aad ka codsatay inuu kugu casumo
xafiiskiisa madaxtooyada halkaabaa sawiradaada iyo adoo baarakaynayo ra-iisul wasaare mubaarakaynayo warbaahinta soo galeen dadku waxay aaminsan yihiin in ra-iisul wasaare si oon kugu dhow adiga uu xafiis ka yimid sidaasina aad ku tagtay kii ka horreeyana siyaasad ahaan iyo reer ahaan laga yaabo inaad ka soo horjeeday ma dhabba kii hore abtigiisa ahaa saasaa ku saxa kii hore abtigiisa ahaa feeri dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo ay hogaamiyaan iyo ninka odaga ah faadiyaasiin ee taliska nabadsugyada jooga aniga waxaan u haystaa soomaalida inay ogtahay hogaanka saddexaas nin ayuu u dhexeeyey annaga weerar nagu soo qaadeen xaruntan wada jir oo hadda waraysiga iga qaadaysa weerar ku soo qaadeen daday ku dileen waa soo wadaa waa inaan isku xiraa hadalka waxaan rabaa su-aashan inaan jawaabta toos u aadno labada ra-iisul wasaare maxay kugu kala duwan yihiin midna waad booqatay midna 3 sano bar buu joogay ma aad tagay weerar ku soo qaadeen xarunta dhibkii weerarka lama xalin mashaakilkii sidii uu taagan yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre markii la magacaabay saasoo kale ii wacay maalintii la magacaabay habeenkiidiiba kan hadda toddobaadaaba u dhexaysaba subaxii la magacaabay habeenkeediiba shir dheeraan yeelanay laakiin de lama sawirin dabcan malaha miidiyaha saas loon danaynaynin markuu golaha wasiiradiisa magacaabina waxaan yeelanay kulan kalaan yeelanay dabcan asagana markaas ay igu dambeysay dalka aniga waan ka tegay markaan soo noqdo nashaadkii siyaasadeed aan bilaabnana weerarkii ku xigay marka nimankaas oo talada xilligaas hayay dhibkiina dhex yaalay geysteen maadaama aysan xalin wax hadda annagana wada hadal dhex mari karaa ma jiro hataa madaxweynaha markuu xisbiyada wacayay ama odayaashii ka horreeyay asaga talada uu la kulmay annaga ka cudur daaranayna marba sababtoo ah dhibkeen in la xaliya annaga horta asaas noo ah ra-iisul wasaare cusubaa yimid annaga kamada xirninba ra-iisul wasaaraha hadduu yimaado oo yidhahdo tala aan weydiisana sidii ra-isul wasaaraha ka horreeyay intii yimid tala noo weydiisaan tala u siinay xasan cali khayre markii la magacaabay kana taladii un baan siinay laakiin wax ka bedelan aragtidii rejiimka aan ka qabnay oo iska bedelay ma jiraan wixii asaga oo ka bedelana waan sheegay aniga kulleetu waaba horaanba ka qoraaba wixii aan kusoo kulanay wixii asaga oo la yimaadaana kula mucaamalaynaa haddii aad arrinta xigtada ka sheekaysana kanaanba kii horaanba abtigii ahaaba soo dhowo maxaad ka wada hasheen ra-iisul wasaare Roble talo un baan siiyey dabcan horta asaa i siiyey invitationka ama martiqaadka xaggiisu ka yimid aniga ma aan codsan inaan arko martiqaadka xaggiisu ka yimid ninaan hore isugu naqaanana uu ahaa sida xasan cali khayre aan hore isugu naqaan intuu ra-iisul wasaaraha noqonin ninaan in badan isnaqaano u ahaa asagaa ii yeero codsaday inaan talo siiyo taladii aan sii lahaana waan siiyey talooyinkaan siiya daawadiisa waxaa kamid a inuusan isku dayin in muddo kordhis la sameeyo dabcan wuu ballan qaaday inuusan asagana u socon naftiisa in madaxweynaha dadka wuu kala irdheeyey oo dadkii siyaasiyiinta way kala dhinteen ama kuwa maamul gobol jooga ama kuwa ha noqdaan siyaasiyiinta xisbiyada oo muqdisho jooga ama kuwa xilka asaga uga horreeyay intaba saas daraaddeed adiga cid wax kuu qabta ma laha marka waxaad haystaa fursad aad ku heshiisii karto ama dhinacyadii aad iskugu keeni kartaa ama aad kula macaamili kartaba ka faa'iideysaa ku tiri fursadahaas sidayso siyaasaddana maadaama hadda uu soo galay bilaha u haystana ay kooban yihiin inuu mustaqbalkiisa uu ka fekero iyo inuusan ka waantoogo dee waddadii ninkii asaga xilka ugu horreeyey oo ku jabayna inuu ka waantoogo oo ah inuu kala aqoodo inuu institution madax u yahay uusan nin u shaqaynin inuu labadaas kala garto way arrintan weerarka hoygaaga oo ajanda walba oo warbaahinta la wadaagto ku jira waa igu adeegsataa maxay tahay sababtaad ugu adeegsanaysaa ajanda siyaasadeed oon la xalinin oon laga wada hadal oo dowladdii ay diidan tahay inay ictiraafto oo dadkii dhibka geystay ay dalacsiisay ay xilkii usii dalacsiisay oo dhibkiina aysan naga joojinin oon ka wada xaalin waayo ciddaasi la dalacsiiyey saraakiishii dee ku involvedkeeda ama ku lug lahayd kulligood la dalacsiiyey oo garaadaha loo badiyey oo dasasar laga dhigay oo madaxweynahana weli ku faraxsan yahay anna xogta siyaasadda waa la kala helaa wuxuu geystay madaxweynaha weli waa ku faraxsan yahay qoomamo kama qabo ma jirtaa arrintaasi in wada hadal dowladda kaala gashay meel hoose aad isla tagteen mas-uul ka mid ah madaxda dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha ku jira oo weliba si hoose aad isu xigtaan loo xil saaray wada hadaladii la furay meel dhex markay marayaanna guuldarro ay ku tahay waxaa dhacay waxaa waaye in dadkii wiilashii dhintay oo saraakiil askarta ahaa ee ciidanka meesha ku dhintay dhowr jeerna waan sheegay taas in eheladoodii diyo la siiyey intaas baa la xaliyey maxaa dhiman haddii diyo la siiyey de soomaalidii diyo qof kala dil waa la kala qaataa
qof oo istishaban waa dawlad state waa wax dilay sida dadka Soomaaliya xaran u kala saarno waxa dadka dagaalka ahliga oo dadka dhexmara iyo dagaalka magaca dawladeed awood lagu sameeyo waa kala labo inaan kala ogaana u baahanahay ko horta dadkii dhibka geystay lama maxkamadeynin labo magdhowgu diye kaliya ma ahayna dhibka la geystay damage-ka waa isugu jira maadi macnuuna waa isugu jira laakiin wada hadalladii ku jireen dhismahaasi guriga oo lacag 3 milyan ah ayaa wararka qaar aan ku helayaa in isla soo gaaray magdhowga iyo dhismaha guriga maya fiiri wax la soo gaaray wax laga hadlo ma jiraan la milyan wala 10 wax la gaaray wala berisi balkiya la isku diidan yahay damage-ka guriga gaaray hantidii laga qaatay ilaa hadda moobiladeena anaga hantiyay noo yihiin qaali noo yihiin hantida guriga laga qaatay waxay tahay mid nool iyo mid aan nooleynba mood iyo waxay dhigi jireen Soomaalida maal intaba damage-kii la geystay midkii maadiga ahaa midkii macnawiga ahaa dadkii in la maxkamadeed dhibka geystay waxaan wax isku wada jira waa dawladdu marka ma ogola arintaas in la furo magdhowga maxaad ku qiimeyn lahayd maxaad ku qiimeyn haystaa dawladda liiskeeda waa qiimeysan waa imisa waari la burburiyay telefoon la qaatay hanti cash oo la qaatay dawladda waa haysataa lacagtooda meeqa waa haysataa dawladdan ku dhahay hadda ma raba inaan details fadlan nala wadaag aniga iyo daawadayaasha waa haysataa dawladda gacanta ku haystaa daawadayaasheeda xog bay u baahan yihiin mudan waa ogyihiin details hadda waa item istira badan aniga jumladeedii tafaasiisheedii ma hayo laakiin lambarka aad sheegaysid wax u dhow xataa ma ah imisad ku qadari lahayd 4 milyan 5 waxaasoo dhan wax dhow 500,000 agaarkeeda exactly numberkii hadda si la isku dardaray 4 baabuur oo meesha lagu damage gareeyay dad xarunta dad kala duwanay u ahayd xafiisyo iyo deegaan u ahayd qof walbaba dabcan wuxuu kaleem gareeyay dhibkii iyo wixii loo geystay kaleem gareeyay I think markii la isku dardaro wax intaas u dhow half milyan dhantaa ma filayo dadka wada hadallada arintaas aad kala gasheen ee dawladda yaa ka mid ahaa waqtigaas waxaan kala galnay taliyaha mas'uuliyadda ninka hadda haysta cilkeeda maadan ku qancin wada hadalladiisa intaanu ogolaanin badee hadda diyaar ma u tahay in lagula furo wada hadallada maxay wada hadalladu in la wada hadlo inaan wada hadlin maaha dawladdu waa inay ogolaataa wax laga wada hadlayo waa cudurdaarka waa dhibkii damage-kii la geystay in magdhow laga bixiyo laga garaabo lana maxkamad iyo sharcina la keeno dadkii dhibkan ka dambeeyey intaasoo kugu diideen waa diideen wali waxaad daawanaysaan barnaamijka awoodda shanaad ee dalsan t v waxaa marti ku ah guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo aan uga mahad celinayna waqtiga daawadayaasheenna uu la qaadanayo arrimo muhiim ah oo laga yaabo intiina badan maskaxdiina ay ku jirto ayaan la wadaagayna haddaad iminka inagu soo biirtay la soco barnaamijka awoodda shanaad mar kale oo kusoo dhaweynayaa farxad baynoo tahay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur qaybtan waxaan kaga hadlaynaa kiiska badda Soomaaliya waxaan daawaday oo dib ugu laabtay khudbadii aad jeedisay waxaa ka mid ahaa inaad tiri waa ku faraxsanahay aniga tiimkayga maalmihii maxkamadda arrimaha badda la furay oo meel wanaagsan marayeen sababteena halkan lagu soo gaaray dhanka kale aan u wareejiyey isla adigoo leh haddana waxaa la weydiinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare waqtigaas aan la joogay ayaa la weydiinayaa heshiiskaas siduu ku dhacay labadaas oo ah waayo hal qadiyad laba waji marna anigu ma dhihin madaxweynaha ra'iisul wasaare la weydiinaa laakiin waxaan sharaxayaa waxay ahayd go'aan kastoo dawlad gaartaa waa dadkeena weli shakhsiyada ku weyn waxay u maleeyaan go'aan wasiir ama qof uu qaadan karo waxaan sharaxay waxay ahayd go'aan golo wasiiro waay go'aan sideedaba heshiis ama isfahan markii la sameynayo wasiir inta baxo meesha xaafad dukaana maaha adiga aad leedahay iskama soo saxiixo karo wuxuu rabo waa golo wasiiro inay waxa ka doodaan marka hore daan madaxweynuhu laanta fulinta u weyna oday ah loo gudbiyo daan markaas markii la soo ogolaado baarlamaanka la geeyo waxaan sharaxin wax Cabdiraxmaan leeyahay ama Cabdiraxmaan soo qaad ama Cabdiraxmaan soo qaadin maaha sharaxaadda waxay ka imaanaysaa go'aanka laanta fulinta labadeeda qaybood xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa qayb ka ahayd maahane oo wax la isla wada ogyahay inay ahaydaan sheegay laakiin wax dhiba arintaasna waxaanba sheegaba sideedaba qofka ugu fiican oo ka hadli lahaa waa qofkii malafka gacanta ku haya ee dhadhaxaadkana ka ah arinta siyaasadda wax ilaaliyahade asaana sheegaba dee oo cadeeyey waxaan waxay yihiin iyo meeshay soo mareen iyo sida loogu baahan yahay maalin kastana waxaa laga yaabaa adiga aweys inaad ka qayb gasho doodo filla Soomaaliya ay ku update gareynayso ama ay ugu sheegayso dadka saxafiyiinta meesha ay wax marayaan golaha wasiirada kankii ku horeeyay kii Xasan Sheekh kuwa hadda jooga kuwa isbedel dhanna waa laga update gareeyaa arintaas ma u maleynaa arinta deertaan waqti badan looga baahan inay tahay inaan cadeyno kiiska badda
ma aaminsantahay in bar siyaasadeed madow ay kugu tahay adiga mar walba oo badda la yiraahdo adiga lagugu liiri karayo siyaasadeed ma ahani aniga sideedaba blackmailing aniga ugu saabsan dad kaliya maba issuegeeda dadka aan siyaasadda la isku haayo aan ku loolamayna waxay isku dayaan inay ama taasa ahaato ama hadda waa ogtoo mar dhexdaasa xataa diintaaba la iska saaray weerar waa laygu sameeyo physical ahoo lafahiga aan la baxsaday marka aniga waxaan aaminsanahay qof lagu tijaabinayo maalinba si in loola dagaalamo inaan ahay oo ama siyaasadda looga saaro anigana aan ninka baxayo hadda soo taga aan ahayn bar siyaasadeed ma aha mana noqonin inuusan noqonin waxaa cadaynaysaba MOU-gii aan siixnaaba waxa loo baxsaday Soomaaliya ma ku celinaysaa isla ereygaas ah kiiska badda ee mar walba aad sheegtay hadda siyaasiyiinta inay uga faa'iidaystaan ajenda siyaasadeed ma leedahay waa ku mahadsanahay aniga iyo tiimkayga inaan halkaas ka keennay kiiska badda oo aan soo gaarsiinay maxkamadda bas waa wax iska aad iska fogeynayso aniga ma aha fiiri aniga waaba kuu sheegaaba inaan meeshaas ka keennay oo maantana uu ku baxsaday laakiin wa shahida shaahidun qur-aanka wuxuu yidhi min ahlihaa xelaaliyaaba sheegaba dee oo yidhi dadkaas taallaha loo dhiso laakiin kiiska dadka soo inay fahmaan waay inuu kambeyn yahay oo dadka siyaasiyiinta isku damage garaynayaan inay ku sirmaan maaha Soomaalida waa wax ka jira lama arko fiiri hadda tusaalaan ku siinaa markii hadda badda la geynayay maxkamadda markii la geynayay yaa dadka reer wasaare ka ahaa reer wasaare Umar ahaa tiimka dacwada geynaya madaxweynaha Xasan Sheekh ah tiimka dacwada geynayay looyarada iyo cidii la tashanayeen dabcan waa xukuumadda madaxweynaha kaalin uu leeyahay dad badana waxay aaminsan yihiin say ku dhici kartaa marka Umarkii shalay reer wasaare ahaa markaan MOU siixinay say ku dhici kartaa asigana dacwada geeyo maxkamadda dadku critical thinking su'aalo isweydiinaya dadka ma jiro waliba waxaa la isku dayay madaxweynaha inuu campaign gareeyo asoo reer wasaare ka dhigay qofkii loo haysa lahaa haddaba kiiska la isku qabsanayo inuu campaign gareeyo isku dayay marka waa inay ogaadaan dadku siyaasiyiinta mararka qaarkood qayb waxay leeyihiin ay geenka siyaasadda si iskula dheelaan madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu isku dayay inuu kiiska badda u saariyo dad markaas uu is leeyahay loolanka siyaasadda ay kula jiraan oo madaxweyne asaga ka horeeyay iyo reer wasaarihii aniga ragaan ka tirsanahay laakiin hal su'aal haddii la weydiiyo ilahay see haddii tiimkaas ay qalad sameeyeen nin kamid ah reer wasaare ka dhigtay maxaa dhaca haddii la yidhaahdo cid weydiinaysa male because wariyaasheenna iyo saxafiyiinteenna critical questions ma laha qofka marka wuxuu rabo iska fabrikaynaya meeshuu rabo iska maraya soo rabo uu yeelaya arrinta badda kiiska halkaasaan uga haraynaa waxaa tahay siyaasi inta badan waxaa la yidhahdaa waa aftahan aqoontiisa fiican tahay si kooban inta in la egay arrintaas ku caawisay siyaasadda kugu caawisay waxaad akhriso inaad adeegsato inaad balaaqa leedahay ma u arkaysaa wax way aftahan adeeraday iyo rag waxaa jiri iyo aftiyaashay iyo dad badan oo saaxiibo aan nahay oo aftahana Soomaali sideedaba dad oo orator waa aftahani wada yihiin ani ma aaminsan inaan aftahan ani waxaan aaminsanahay in aragti siyaasadeed hayo aragtida siyaasadeed sida loo soo gudbinayo laga yaabay inay ay fiican tahay saan soo gudbinayo dad badan oo iga mahad celinayana waan arkay dad badan oo arrintaas igula xiranna waan arkay laakiin aniga waxaan hayo waxa way ku aragti siyaasadeed laba inaan mowqifkayga cadeeyo oo qadiyad waxaan ka aaminsanahay aan ka been sheegin oo mowqifkayga aan cadeeyo waa muhiim consistency inaan leeyahay nin waxa uu aaminsan yahay aysan isbedelaynin ama qofkii yimaado ama wax yimaado siyaasiyiinta oo orto maslaxada siyaasadda isla rogaan oo hadday arkaan arrin inay qatar ku gelayaan ama taageero ku weynayaan beeshooda ama deegaankooda way ka leexdaan laakiin annaga waxaan u bareernay iyo tiimkaygaba runtii keligay ma aha inaan annaga mawaaqifteena mar walba aan cadayno aan consistency ka ahaano oo si joogto ah ay hadalladeena isku yeeshaan laakiin meelaha qaar waxaa la yidhaahdaa oo waad ku dhaliilan tahay oo dhaliil ayay dadku u tusiyaan inay tahay tusaale ahaan waxaa ka mid ah arrintii diinta markaad ka hadashay iyo dumarka oo runtii baraha bulshadana falcelin fara badan kaaga timid culumadana kugu qabsadeen mararka qaar miisaanka siyaasaddaada iyo erada isticmaalayso diinta waan aqaanaa oo nin caamaa maahi shabacadla waxaa laga sheegay la naxariistay hooy cabsiinina maahi caami dhagaweyn nin caamaa maahi ma malaynayo culummada kitaabada iga daba qaato wax dhaaxa ay badan ay dheer yihiin aqoonta diinta inay jiraan nin diinta yaqaanaa nahay diinaan u gafayna ma jirto laakiin ayada nafteeda la siyaasadeeyey fiiri qalad laakiin wax walba oo ka dhaca haddaad tidhaahdo waa la siyaasadeeyey waxaa cadaynaysa culammadii yaa waxay leedahay yaa la dooranni hebel goormay dheheen inaan dhegeystaa fiican masaajiday ka khudbayn way dheheen ninkaas yaa la dooranay dheh maxaa doorasho gala culammada hadday su-aal saxayaan waxa ay saxayaan ee doodka ka qabaan may sheegaan saddex shay qaatil weliba hal ma ah ninkaas yaan la dooranin ninkaas yaan la dooranin marka ani waxaan u haystaa doorasho iyo mas'alo aad saxayso wax iska gale ma leh
qofka hadduu qalad sameeyo waad u sheegaysaa public uu sheeg ama si private uu sheeg adiga ku taala qaladkaas kaliya adiga cabiraysaa laakiin qofka characterkiisa fiiri aniga shakhsiyadeedu wax ka sheegeen inaa codlaysiin inay ka sheegeen qaarkood waxay gaarsiiyeen xataa inay gaalaysiiyaan waxaasoo dhanna looma baahna dalka doorashay isu diyaarinayaan muqdisho waxaa ka dhacay heshiis madaxdii maamul goboleedyada iyo kuwa xukuumadda dhexe aragtida siyaasadda waa maxay waa la fiican yahay heshiiska waana soo dhaweyn anaga xisbi ahaan xilligan ka hor inuu dhacaana fiicneed markaas madaxweynaha dalka walwal badan iyo qalqal badan uu geliyey oo ah dadku inay aamineen dalka inaan doorasho ka dhacaynin dadkuna ay ka shaqaynayeen badiilkii hadduu madaxweynaha doorashada diida la samay lahaa haddeertaan marka heshiiskii waa la gaaray waa soo dhaweynaynaa waa fiican yahay dabcan tafaasiishaa dhiman wax cabsiya ma qabtaa in doorashada waqtigeeda dib looga dhaco waqti korsi u yimaado tusaale ahaan mar kasta waa qabnaa laakiin waxaan rabnaa in la bixiyaba taas dabcan ani ra-isul wasaaraha markaan arkay madaxweyne ma arkin laakiin ra-isul wasaaraha markaan arkay assuransiga una siiyey waxay ahayd inaan xilliga doorashada loogu talagalay aan la dhaafaynin laakiin mar kasta cabsidaas iyo walwalkaas waa qabnaa ololihii doorashadood bilowday sax waa sax heshiiska kadib ha okay muqdisho waxaa ka dhacay shir mid ka mid a beelaha soomaaliyeed sloganka amaba boorka ku qornaa in lagu taageerayay si hoose marka taxliilka iyo dadka loola hadlana isla beeshaasi taageero inaad ka heshay amaba ku siiyeen ay ku caddayd ma beesha isku raacday inaad noqoto murashax keliya ee beeshaasi ka soo gelaya doorashada mise wax kala jira ayagaa hadlaba dee ayagaa sheegay abaabulkana ayagaa iska lahaa martiqaadkana ayagaa ii fidiyay aniga si ay u arkeen inay tartanka doorashada haddii xisbiyadii la diiday oo la yidhi dee xisbi doorasho laguma gelayo oo la joojiyey wixiina iska tahay 4.5 qabaayil iska tahay inay ayaga is abaabulaan ay u gartaan inaa aniga tartanka u galo oo ay mudnaanta ay siiyaan dabcan ayagaa caddeeyey meeshayna ka dhacday marka qofka keliya ee murashaxa laga rajeynaya beeshaasi waa adiga saas miyaa sida ay shalay ii sheegeen waa sidaas ma ku qanacday of course ha qabiilada kale ma ka raadinaysaa mise of course ha nacam waa 4.5 siyaasadda soomaaliya 4.5 ah minankaaga ka soo bilaabay koraad u soconaysaa hadda sidii marka u kala sarraysa le waaye inaad raadiso ilaa soomaali aa ka wada raadisa alla ciddaa xukumaysa waa soomaali laakiin de annaga waxaan jeclayn xisbi in lagu tartamo waxaan jeclayn loobi kambeynka aan gelaya maanta mid xisbi inuu yahay daafaha soomaaliya in xafiisyada ka furan yihiin meel kasta aan ka kambeyn garayno laakiin dadkii waxaa la yidhi bahashii ergo iyo oday iyo qabiilay ku noqonaysaa febraayo oo ku guuldareysatay doorashada murashaxaad ahayd saddex qodob oo sabab u ahayd in doorashadaasi aadan ku guulaysanin inoo sheego oo sabab u ahayd oo is leedahay 1 2 3 iyo 4 ayaa sabab u ahayd inaan madaxweyne ka noqon waayo Soomaaliya saddex qodob walahi anaga horta dadkaan guulaysan horta way fara badan yihiin sababaha aan lagu guulaysanina way aniga waxaan aaminsanahay in ay tahay campaign inaanan gelin oo ku dhisan indhasarcaad maxaa ula jeedaa dadka kale oo guulaysta campaign indhasarcaad ay galeen ku dhisan oo ah inay ayaga wadaniyin yihiin inay ayaga daacad yihiin inay ayaga saas yihiin annagana waxaan isleeyahay focuska ama diiradda saara waxa Soomaali ka qaldan iyo sida loo xalli karo xaggaasaan xoogga saaran waxaan u maleynaynay dadku wax dooranaya inay fiirinayaan war qofkan mushkiladaha dalka haysta ma soo bandhigay xalkeedana ma haya laakiin kambeynka waxaa lagu galay wax la yiraahdo nasarcaad in la yiraahdo annaga saasaan yeelaynaa ballanqaadyo dadka markiiba saa sheegaysay markaas dhareer ka soo daadinayo ay taagan yihiin ay markaas arki karaan waxaa laga yaabaa marka campaign strategiga in la ka fiicnaa marka istiraatiijiyadaada kambeynka waad bedeli doontaa oo sida hadda aad ku tilmaamtay nasarcada samayn doontaa saas miyaa taas waa taagneynaya laakiin kuwa kale laga yaaba in wax ka bedelno annaga waxaan jecelnahay dadka Soomaaliya in xaqaaqda loo soo bandhigo meesha hadda aan kor dadka aan fahmayno wacigooda inuu soo kacayana waxaa waaye dadka inay soo aaminayaan in xaqiiqada loo soo dhawaado ciddii nasarcaadka ku kambeyn garaysay oo dadka u sheegtay inay soo celinayso waxyaalo ay sameyn karin samaynaysana fashilkeeda annaga fursad wuxuuna siinayaa in dadku ay xaqiiqada u soo dhawaadaan oo hadda ka bacdi dadka aan lagu qaldin dadka Soomaali maraa jirtay ay aaminsanayeen qofka hadduu ahlu diin yahay in ay wuxuu sheegayo ay run tahay ay aaminaan kalsooni ay siiyaan
qofaa wuxuu kaar xoqday lahaa aniga wadaniyaan ahay dadka anaa u wadanisan beri Ethiopia shaqan ka qabanayaa beri dambe waxaan sheegayaa amisom dalka waa ka bixinayaa madax banaanidii iyo qarnimadii Soomaaliya soo celinayaa dhalanteedkaas waxaan filayaa dadka hadda inay ka soo waantoobeen oo dadku xaqiiqada ay u soo jeesteen aaminsan xisbiga wadajir oo adigu ka tahay hogaamiyaha cafwan iyo ku tiirsan yahay dhaqaale ahaan dadka Soomaaliyeed ilaa hadda dadka Soomaaliya ku tiirsanay ayagana taakuleeya ayagana gacan siiya ayagana garab siiya ma dhabba in imaaraadka aad ku tiirsanto lacag kuma tiirsanin wax aan ka helna male mana ku tiirsanin dowlad kalena kuma tiirsanin imaaraad kaliya maahan dadka Soomaaliyeed waana og yihiinba cidda waxna siisa cidda wax noogu deeqda cidda noo tabarucda intaba way ogtahay dadna waqtigooda noo tabarucaan dad hantidooda siiyaan noo tabarucaan dadna waxay noo tabarucaan imkaaniyaadka kale ay leeyihiin ay nagu caawiyaan oo runtii aad u badanba waxa kaliya resource kuma aha kaliya lacag kaliya cash ma ah waa maxay xiriirka kala dhaxeeya dowladda imaaraadka carabta dowladda imaaraadka carabta xiriir maba ila dhaxay karaba sababtoo aan tala dal ma bahayaba dadku waa inay fahmaan dowladaha waa xiriir kala dhaxeeya dowladaha taas waa inaa madaxweyne farmaajo weydiisaa imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya waxa ka dhaxeeya qof siyaasi oo opposition oo mucaarada qof xiriir maba kala dhaxay karaba sababtoo xiriirkii muxuu ku dhisanaanaya maxaa u tarayaa maxay ii tarayaa laakiin siyaasadda Soomaaliya mar walba 4 sano la gaaro waxa saameyn ku leh wadamo ama Afrika ahaato ama Asia ahaato ama Mareykan ahaato ama Yurub ahaato adiga iyo xisbigaaga yaad saaxiib dhow tihiin qofaan colanahay ma jiro qofaan saaxiib lanahay goonina ma jirto dadka annaga distance ama masaafo isku mid ay noo wada jiraan dadka Soomaaliyana waa runta waaba la daneeyaaba doorasho kasta adduunka la daneeyaa ta Mareykanka maanta aan u fadhino oo laga yaabo in September dhacdo adduunka dhan waa daneynaya focus lagu wadaya dal kasta doorashada ka dhacaysa cidii dowladahaas markaas interest kale ama danta kale ama maslaxada kale doorashada waa daneynaysa cidda hoggaankeeda qabeynaysa waa daneynaysa inay la saaxiibaan la sheekaystaan way filayaan kuwa safaaradaha inta jooga oo intooda badan bad hadda intay wada joogaanba safaaradii Soomaa maalin kasta way nala hadlaan dadka isleeyihiin potential u yihiin aan fursad u haystaan inay dalka hogaamiyaan way la hadlaan waxay kala hadlayaan waxa kamid ah kaliya danaha dalkooda maahane xataa Soomaaliya iyo sida dib u dhiska u aragtay iyo aragtida ka qabtay iyo waxaasoo dhan dabcan way fiirinayaan maslaxadooda halis ku tahay inaas ku ahayn way ka fiirinayaan adaa laga rabaa inaad ka qanciso way baraha bulshada Facebook iyo Twitter ka aad baad u isticmaashaa oo waliba la gaarsiiyay Cabdiraxmaan waa Facebooker muxuu ka caawiyay muxuu ku dhibay Facebook waxa inta uga caawiyaa badan dabcan aniga sideeda markaan wax qiyaasayeen negative wax kasta waxay leeyihiin wax oo wanaag iyo waxaan wanaag ahayn intaba laakiin aniga waxaan fiiriyaa inta badan waxa ay tahay social media markii la isku daro Twitterka Facebooka kulli aaladaha social media oo dhanba waa maanta waxa waaye awoodda maanta adduunka ka jirta ee communicationka ama xiriirka bulshada waaye marka waan isticmaalaa waxaan siinayaa talo oo maaragtay voluntary ah dadka siyaasadda ku jira ama kuwa ila loolama ha ahaado ama kuwa kala aadeen inay isticmaalaan kula talinaya dowladda hadda jirta oo nabadii nolol la baxdayna waxa ugu badan ee isticmaashay ama dadka ay ku terrorize gareysaba waa social media ana waxaan arkaa inuu wax muhiim yahay isticmaalkiisana laga maarmaan u yahay arka 5 qodob oo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda madaxweynaha ku yahay ay ku guuleysatay oo aad leedahay way ku maadsan tahay noo sheeg taxan iskool ina qaadaysa umaleena ani dowladda uma xil saarni waxa ay ku guuleystay waxaan u xisaalanahay waxay ka gaabisay soo xisbiga ma ahayn kii waxa dhaliishana sheega horumarka dalkiisana u gaar sheegay maya xisbigu wuxuu ka shaqeeyaa dowladda waxay ka gaabisay inuu dadweynaha u tilmaamo waa jeclahay inaan u define gareeyo ama u qeexo mucaarad waxa uu yahay mucaarad shaqadiisa waxa waaye inuu waxay dowladda ka gaabiso u sheego dowladda ayadaa isaga filan waxay qabatay inay sheegto ayadaa media u haysata ayadaa awood u haysata ayadaa u taagan ayadaa afar saac sheegata ayadaa ku soo celisa ayadaa ka badbadisa annaga noogama baahna annaga waxay nooga baahan tahay inaan u sheegno dhaliisha ay leedahay haddaad cadaalad fasha ka waran ka muwaadin ahaan siyaasi ahaan oo aad tidhaahdo dalkan 4 sano 5 qodoba horumar laga sameeyay fiir waxaan aan culayska u taan kuu sheegaa Soomaaliya irdeeda waa balaqan yihiin guri irdiisa balaqan yihiin odayga iyo xaaska iyo ilmahana conflict ama ka dhaxeeyo colaad ay ka dhaxayso ay haystaan haddaa tiraahdo qolka jiifka fadhiga yaala ama sariirta taala ka waran aniga qiime ay dhahdo dee wax macnaa ma ii samaynayso
gurigii ballaqnay Soomaaliya waa ballaqantahay waxaan ka wada xuduudaheeda furan siyaadadii ma jirto wadan ka bilawnay qarannimo madax banaani lama haayo ciidan Soomaaliya dastuurka ee lama haayo marka irdii waa ballaqan yihiin oo cid yarta soo galaysa gurigiina dadkii joog waa isaystaan odaygii xaaskii iyo reerkii isqabay iyo ilmihii conflict ka dhaxeeyo haddii marka la qurxiyo alaabta taala guriga jiifka iyo fadhiga ay qurux badan yihiin oo ay tiraahdo qiimay waxaa tiraahdaa ka waran alaabta jiifka guriga taala wax macnaa ma laha waa laga yaabaa dowladda inay xafiisyadii qurxisay ay deganaayeen waa laga yaabaa meelaha qaarkood in la dayac tiray waa laga yaabaa istaadi muqdisho in la dayac tiray waa laga yaabaa taalooyin in la dhisay hadda aniga waxaas iguma qiimaysna wax horumaraho weyn iguma qiimaysna dalkan waxa ka burburay waa dadka dowladdii institutionskii iyo dadkii karakterkoodii iyo qiyamkoodii iyo dadnimadoodii iyo adeegii bulsho ee caafimaadkii iyo biyihii iyo korontadii iyo noloshii asaaska dadka ka maqan aniga marka haddii la dhaho taalada meesha la dhisay ka waran say tahay madaxafkii qarankan dayac tirina ka waran say tahay waxay ila mid tahay guri saan kuu sheegay buuq ka jiro irdihiisana ballaqan yihiinoo marka hore tuuga soo geli karo alaab qorxan la dhigay qiime haddaa tirada aniga ila mid tahay aad mahadsan tahay mudane daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeennii awoodda shanaad ee dalsan t v aynu ku soo qaadanay waxaa marti inoogu ahaa xalaqaadkan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo xilal kalena ka soo qabtay dalkeenna Soomaaliya anigu Aweys Xasan Maxamed ayaa idin socodsiinayay aad baad ugu mahadsan tihiin daqiiqadaha idinla joogteen intaynu dib ugu kulmayno xalaqada tan xigta waxaan idinku dhaafinaa sidaa iyo nabadgelyo sharaf bay noo tahay inaad naga aqbasho wareysiga noo mahadsan tahay hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaaro dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga